Ma ogtahay in caanaha baranbaradu ay yihiin boqorada cuntooyinka casriga ah isla markaana ay ka nafaqo badan yihiin badiba cuntooyinka aynu quudanno? Waxaa jira su'aalo dhowr ah oo aad weydiinayso oo ay ka mid yihiin goorta ay baranbaradu yeelatay naasada nuugi karo. Aniga ayaa kuu sheegaya bal horta hubi inaad muuqaalkan leeg saartay. Si ka duwan baranbarooyin kale oo iyagu dhala beed ama waxaa jira nooc baranbarada ka mid ah oo iyadu dhasha ilmo u eg laguna magacaabo Diplobetra buccate. Baranbaradaas waxay ilmaheeda ku ilaalisaa qolof adag iyagoo ka soo baxa markay qaan gaadhaan. Inta ay dhalaan ku jiraan qoloftaas waxay baranbaradaas siisaa oo ku quudisaa dareere huruud ah kaasoo qani ku ah cuntooyinka dabiiciga sida borotiinno, fiitamiino, karbohaydraytyo iyo duxa kala duwan. waxaana la tilmaamay inay 3 jeer ka tamar badan yihiin caanaha looda. Haddaba iminka saynisyahanadu waxay ogaadeen hab ay dib ugu soo celin karaan caanahaas ka hor inta aysan quudan baranbarooyinka yaryar. waxayna awood u yeesheen inay bacribiyaan baranbarooyin badan si loo soo saaro xaddi badan oo caanahaas ah. waxaana laga yaabaa inay dhawaan suuqa si baahsan u soo galaan kadib marka ay soo dhaafaan caqabadaha hortaagan ay ka midka yihiin in aysan dadku niyad ahaan u cuni karin wax barabare laga sameeyey. haddaba waa su'aal adigoo habkaas uga quudan lahayd caano barabaro. fadlan ra'yiga commentiga noogu reeb.